السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومركلة iyo cashiradaynu imtixaanaha Microsoft Word 2021 videogan waxaynu kusoo qaadan doonaa qaabka sawirada loo soo gashto maxaan dhahaye documentigaagii ama wordka yani sidaad sawiraan usoo gelin karto sawirka qaabkaad u crop gareyn karto u yareyn karto dhinaca aad rabto warqada inaad ka dhigto waxyaabahaas aynu arki doonaa sidoo kale waxaynu ku daraynaa hadday macquul noqoto qaabka aad video oo kale haddaad rabto matalan qofku markuu waxaaga akhrisanayo videogan oo kale daawo haddaad rabto inaad yani aad kula wadaagto documentigaaga oo qaab intuu qoraal qofkii akhriyo kabacdi video yani isla arki doonaa marka waxaynu ka bilaabi doonaa insertidii baan ku jirnaa oo inagii tableka soo dhamaynay pictures baynu galaynaa marka mid baynu arkaynaa wixii muhiima ee xaggan noogaga jira qaarkood intaan ka boodna ayaa loo soo noqon meelaha kalean soo maraynaa marka qaabka ugu quruxda badan leh kolba aad loo qabsan karayso ayaan u wadi doonaa insha allah okay pictureski maxaad samaynaysaa haddaad picture ku jiido insert picture from xageed kasoo gelinaysaa buu kuleeyahay laptopkaaga ma devicekan aad isticmaalaysa laptopka stock images maxaan dhahaye images yani online oo haddii aad kelig imika tiraahdo oo kaaga baahan online ayaad u baahantay inaad kasoo geliso kuwan laftooda isla online labadaba waa online marka kuwee rabtaa marka inagu waxaan rabnaa inaan laptopkeeni kasoo gashano this device baan dhihi matalan sawirada iigu jira marka laptopkaagaad ka tegdi meesha sawirada kugu jiraan waa taqaanaa ay xagga kugu jiraan matalan waxaaban iska soo qaadan bal odaygaasoo kalean soo qaato okay laakiin xuquuqdiisa ma lihin sawirka sharaxan soo qaadano inkastan shoodadkayga sawiray laakiin qofkaas dee waxaa laga yaaba qof bini'aadana walaalihii ama carruurtiisu arki karaan videogan inay jeclaysanin insert aan dhaho waa kan sawirkan baa isoo galay kow sawirkan waxaad aragtaa inuu wax weyn yahay dee inaan yareynana laga sugayaa dee waxaan samayn doonaa horta see baan u yareyn rabnaa bartan baad qaban kartaa saan baad dhihi kartaa scratch baad yani maxaan dhahaa isku soo celin kartaa control z endo hadaan doono waxaan samayn karaa intaan geeska ka qabto inaan saa dhaho okay ama geeska afarta gees mid intaan istaago yani sawirkii hal mar ii wada yareysmay kan oo kale imika haddaan dhaho isku yara noqonayaa yani waa gaabin yani isku noqonaya lakin haddaan imika dhinacaas oo kale qabto sawirkii oo dhan ayuu sidaa igu waxaynaya marka xaggan aan ka yara ballaarin for example waxaad aragtaa inuu sawirkeeni sidaa yahay shayga labaadeen raba inaan aragno waxa weeye horta sawirkii markaan ka baxo waa kaa haddaan click dhaho xagga waxay noogu soo biiri doontaa picture format sawirkan waxaan rabaa kow inaan intaa yar ka jaro oo intauna ii soo hadho see baan samayn haddii aad picture format soo gasho oo xaggaa ugu dambeysaa tigto crop adiga arka crop waa taqaanaa mobilekaaga waad isticmaashaa haddii aan bartaa soo dul istaago imika waxaad aragtaa fallaadhaydu inay caadi tahay markaan xaggaa dul istaagana inay cross noqonayso markaan xaggaa soo dul istaagana ay noqonayso yani dubbo oo kale xun waad aragtaa dabeedna haddaan imika xaggaa soo qabto waxaad aragtaa intaa inuu iga jarmayso xaggan lafteeda haddaan wax rabo inaan ka jaro kaa hadii kalena dib ii soo celi dabeedna meel maran click ku jiid waxaad aragtaa sawirkii intii inay ka jarmato weliba intaa haddana waan ku dari karnaa waa kaa xaggana waxaad ka maamulaysaa sizeka yani haddaad click saas u wado wuu kaa weynaanaya haddaad sidiisa kusoo celinayso waka nooca aad rabto kolba waad samayn karaysaa mar labaad waxaynu rabnaa inaan pictureskan saynu iskaga soo maxaan dhahaye aan iskaga dhamayno waxaynu rabnaa inaynu aragno for example correctionskan iyo waxyaabaha dee haddii aad u baahantay inaad xaggan wax kaga bedbedesho waa kan saan baad uga bedbedeli waka haddii aad rabto yani sidaasaad wax uga bedbedeli marka maxaynu nidhi picturekii sawirkii haddaad rabto corrections haddii aad wax ka bedbedelayso waka haddaad sidiisa ku daysanayso waa sax haddii aad yani colorkii oo kale aad rabto matalan inaad kaasoo kale ka dhigto waka effects xagga wadagal marka waxaan waxa mid walba ku dul yani saa u dul istaag oo ku tusi fiiri adi marka waxa ku cajibinaya lacala sawir aad jeclaystay inaad ku hagaajiso photoshop waxaan ujeedaa baalkii word ama Microsoft Word marka yani haddii aadan baran weli photoshop iyo waxyaabaha sawirada lagu hagaajiyo oynu mustaqbalka koorsooyin kasoo duubi doono haddii taxanahan la socoto insha allah mustaqbalka waynu socon doonaa PowerPoint, Excel, Photoshop, Illustrator, InDesign waxyaaba badan baynu qaadan doonaa oo free ah oo aad ka heli doonto websitekeena waxyaabaha qaarkoodna waxaynu ka dhigi doonaa websitekanaga ayaad ku qaadan doontaan okay haddii aan picture format dhaho transparency xaggana transparency inuu noqdo yani daciif oo kale oo yani weak maxaan dhahay sida transparency noqdo wax dee laga muraayadda markii transparency tahay waa muraayadda la iska dhex arkay oo kale يعني transparency waxa ka dambeeya la arkay oo kale
intaasan kaga soo tegaynaa intan archestida yani aduu galgal wax muhiima kuma jiro remove ta waan usoo noqonnaa picture styliska wax kale maahan oo haddii aad rabto iminka inuu qaabka noqdo quruxda badan leh haye muraayad baan matalan ka dhignay dabeedna intana iyadoo ku xiran tahay picture borderka maxaa rabtaa ma iminka maxay noo saaran xagga madow bay noo saarnaa casaan baynu ka dhigi karaynaa wakaas picture effects haye maxaad kaloo inaad ka bedesho rabtaa jirta masaan baad rabtaa inaad ka dhigto haye masaan wadwad shadow haye shadowga xagoo la rabtaa inuu ku yeesho reflections hoosta reflectionka waa kan inuu hoosta yani kugu siiyo maxaan dhahay reflection yani inuu reflect sameeyo uu isugu laba celiyo kuu hareeyo okay qaab gebiba sidan u wada baadhbaadh waxan yani wax muhiima masi ah laakiin egeego maxaan dhahay sidaa u wada fiirfiiri sidoo kale picture layout haddaad rabto click baad ku dul jiidi kartaa dabeedna xaggana text iskaga soo darsan kartaa okay gg saasa samayn karaysaa marka andoho okay ando mar rabo waxaan oo dhan pictureska gebi ando soo dhaho dabadeedna waxaan rabaa iminka pictureki markaan ku dul jiido hadda maxaynu soo aragnay picture styles intana waynu soo aragnay hadda waxaynu rabnaa inaan aragno remove backgroundida taa ay ku qoran tahay marka remove backgroundida waa mararka qaarkood baad ku remove garayn kartaa backgroundi cadaan yani kaaga dhigi doonaa sawirada qaarkood ayaad ku isticmaali karaysaa haddii lacala ama photoshop iyo waxyaaba advanced ka diran marka remove haddaan matala dhahno isaga automatically maxaan dhahaye detect garayn doona inta shaaxa marka koobka qayb buu naga raacay marka waxay dhigan tahay haddii iminka okay dhahno keep changes haddana dhahno waxaad aragtaa inuu naga wada baabiyey wixii casaanka ahaa marka haddaan ando soo dhahno remove background dhahno oo koobkii oo kale intaasoo kale aynu ka reebno for example mark areas to keep mark gare haddii aad yani tani waa inta lagu deynayo intan casaanka maxaan nidhi waa inta uu saarayo marka muxuu ku leeyahay mark gare inta la deynayo marka haddii aan inagu intan deysanayno sidaas ayaad ugu dul sawiri intaad mouskaaga iyo waxaad isticmaalayso dabeedna intaa uu kaaga dul qaaday marka haddii matalan mark areas to remove meesha aynu rabno inaad remove garayso haddii maxaan dhaha ii sheeg buu ku leeyahay meelahan way noogu jiraan matalan haddaan shaaxa ku dhex darsano shaaxa xitaa way naga saari marka inaga waxaynu rabnaa inuu shaax iyo waxyaabaha daayo intaas ka qaad xaggana koobka waxaad aragtaa mark areas to keep meelaha aad deynaysid ayanu saa ugu sheegaynaa marka xagga lafteeda saas weeye haddaba haddaan keep changes dhaho waxaad arki doontaa koobka inay noo saaray qaab foolxun laakiin aynan macno lahayn intaasi waa inta qaabka background looga remove gareeyo waxyaabaha sawirada sida loogu hagaajiyo Microsoft Word okay shayada ugu muhiimsan aynu ka baran doono for example hadaynu kan iska saarno on home insert yani picture haddana mar labaad soo gelino sawir kaleeto matalan kan oo kale ama cimiladan ama kan oo kale jigjiga okay jigjiga jarno okay on dabadeedna saa dhahno on sidan dhahno on iska yaraysano okay intaan yarayno xoogaha aan sidaa ka dhigno for example waxaad matalan waxaaba rabtaa in aad ogaato iminka haddii aynu saa u qaadisi dhahno ma control karino waxaan rabnaa matalan qoraal baabad soo qorqortay qoraalkaaga xagga cv oo kala diyaarsanaysaa waxaa rabtaa inaad maxaan dhahay xaggan oo kale dee aad sawirkii soo dhigato ama dhinaca rabta aad dhigato dabeedna haddaad click tiraahdo picture format aad tigto dabeedna position waxaad aragtaa inuu xaggan different positions ku siinayo marka maxaad aragtaa inuu xaggaas aad ka dhigi kartid with text wrapping weliba qoraaladii baad garab gelin karaysaa haddaan sideka ka dhigno for example xaggan oo kale waxaan ahay xamse cumar oo kale waxaa rabtaad ku qorqoran karaysaa marka xaggan oo kale waxaad ku qori magacayga professionkaad ka shaqeyso xaggan sawirkaagii oo yaala sawirkii baad yarayn hadduu meesha kusoo baxayn hadduu maxaan dhaha wax ka jiraysid saasaad ku wadi marka picture format tanna waa isla midkiin haddii aad yani dad sii baadhbaadha waxa ku dhihi doonaa qoraalada korkan kaaga soo dulmariya waxyaabahaas intana waa intaa in lamida yani arrangigan bay kamid tahay haddii aad qoraale iyo waxa aad qorqorto for example iminka okay waniga qoraalo soo qornay for example intii baan soo koobiyey haddii positionka iminka centerka ka dhigo waxaad aragtaa kani ilgare centerka hadda waxaad aragtaa in ay qoraal xaggan daba maray for example haddaan click ku dul jiido on picture format yani iminka positionkii weeyaan xaggan aan ka maamulayo waxaad aragtaa inuu position kolba meeshaan geeni rabo uu tegayo for example dhexdaasaan baan ka dhigay haddii iminka for example kuwan through
iyo top and bottom top and bottom يعني qoraalka top iyo bottomna ka maro through ha dhex maro for example behind text in front of text behind textiga imika wuxuu kaaga dhigayaa haddii aad fiiriso qoraalkiibu korka soo marinaya dabadeedna haddii aad imika in front aad tiraahdo sawirkiibaa sarreynaya qoraalkiina waxaad aragtaa sidaas si lamid ah waxaan samayn karnaa inaad move garaynaysaa markay yacni wrap textiyada waxyaabaha kuu saaran yihiin marka intaasna baadh for example haddii marka actually yacni intaad isticmaalaysa ayaa yaraan doonta laakiin haddii aad rabto iminka anyways inaad isticmaasho qaabkaas aad u isticmaali intaa iminkaynu aragnay maxaan dhahay intaas ayaynu iskaga daynaynaa cashirkan yacni hal waxaynu kusoo noqon doonaa mar baynu project ka shaqayn doonaa cv qaabka loo diyaarsado markaasaynu sawiradan iyo waxaan sidaad u arrange garayn kartid waxyaabahaas arki doonaa intaas waa intaa waxaynu ku daraynaa for example insertidii the objectskan oo kale for example objectskan waxa weeye haddii aad video rabto inaad kusoo darto meeshaadii oo kale for example create from file browse video ama pdf ama wax kaleeto ood rabto in la furo marka qofku yacni intaad u direct garayso aad tusi karto ku dhihi karto markaad xaga yacni soo gaadho waxaas fur ayaan maxaan dhahay for example haddii insert dhahon okay dhaho qoraalkaagii oo kale matalan ayaad xaggan dadka usoo suggest garayn waxaad dhihi videogan hoose daawo waa dad aad yacni la wadaagtay powerpointigaaga dabeedna qof double click markuu dhaho open hadduu dhaho qofkii yacni videogii wuxuu arki doonaa qaabka uu u shaqaynayo waa maxaan dhahaye Library Institute okay intaa waa intaa marka objectiveskuna waa waxaas yacni haddii aad pdf oo kale for example create from browse haddii aanu dhahno pdf-kan oo kale ama sawirkan oo kale inoo fur inkastuu kani sawir yahay for example haddaynu pdf heli karno documents from video for example haddaan kan oo kale furi karno on okay dhaho haye qofkii markuu xagga soo gaadho dabeedna double click hadduu dhaho wuu furan karaa open buu usoo saari dabeedna asagii wordkii akhrinaya haddana pdf-kii u furmi haduu yacni ugu jiro browser fura pdf-yada kaasuu sidaa ku furan doonaa intaas waxay noogu dhan qaabka pictures loo soo insert gareeyo sidoo kale iyo objects waynu sii wadi doonaa classka isku xiga waxaynu baran doonaa shapes qaabka loo soo geliyo waynu wadi doonaa horeynu u soconnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu